وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تضبية أفرتنات يا كتاب كيني عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم رحمه الله. هذا بوحن كجرني فوائد الصدقة أي لها ترى بدن والشيخ أوتريي وحا كمذا فوائد الصدقة إضفاء غضب الرب الله سبحانه وتعالى caradiisa waxaa lagu dameeyay sadaqada ayaa ka mid ah. Sadaqadu waxay dameysaa carada rabbi, waa xadiis saxiix ah. Waxaa ka mid ah inay gaar ahaanna waxaa la yidhaha weliba sadaqada qarsoon baa sii daran oo carada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dameeyaa. Waxaa ka mid ah fawaa'ida sadaqadu ay leedahay khatiicada iyo dembi aad samaysay in ilaahay subxaana wa tacaala kaagaga tirtiro. waxaa ka mid a in ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu ku dameeyo sida biyuhu ay u dameeyaan dabka ayuu allana subxaanahu wa tacaala ugu dameeyaa naartana kaagaga damin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waxaa ka mid a fawaa'idda ilaahay sadaqadu inay noqoto wiqaaya min annaar, wax naartiiba kaa ilaaliya ayay sadaqadu noqotaa. oo rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam markuu xadiidkii cadiimkaaya weynaa uu kaga hadlay maalinta qiyaamo qof kasta inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hor istaagi doono isagoo oon tarjumaan u kala tarjumay isaga iyo rabbi aan jirin. wuxuu yihi xadiidku fayandura aymana minhu falaa yara ila maa qadama wayandura ashama minhu falaa yara ila maa qadama wayandur talqaa wajhi falaa yara ila annaar fattaqu nnaara walow bishaqi tamra. bal u fiirso, xagga midig buu qofku fiirin ilaahay oo hortaagan, wuxuu arki wuxuu hormarsaday oo keliya, bidix buu fiirin wuxuu hormarsaday, xagga horuu fiirin naartii oo soo baxsan buu arkayaa. rasuulku mowqifka khatarka wuxuu yidhi fattaqu nnaara, naarta iska ilaaliya walow bishaqi tamr, walow timir jeexeedna allaha ka yeele iskaga ilaaliya. marka sadaqadu wanaag ay leedahay baa halkaas lagu tusinayaa inay naartiiba noqoto wiqaaya iyo wax kaa ilaaliya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. sadaqada fawaa'ideeda waxaa ka mid a inay hadh iyo u noqoto qofka uu haraysto maalinta qiyaamo ee kulaylka darani uu jiro. hadh aada harsataba waxay noqonaysaa sadaqadii. rasuulka yihi sala allahu alay slam qof waliba dilli sadaqati, sadaqadiisa hadhkeeda ayuu harsan doonaa maalinta iyada. waxaa ka mid a sadaqadu inay noqoto shifaa min alamraad alqalbiya walbadaniya, amraada iyo jirooyinka dadka ku dhaca. sadaqadu waxay noqotaa sabab ilaahay caafimaad uu ruuxa ku siiyo. oo waxaaba jira xadiis isagana saxiixa uu rasuulku lahaa daawuu mardaakum bisadaqa, dadka xanuunsan sadaqada ku caafiya, bimacnaa sadaqada caafimaad ugu raadiya oo bixiya sadaqa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waxaa ka mid a fawaa'idda inay tahay sabab ee qofka muslimka inuu gaaro martabatlbiri, wanaaga iyo martabada lagu sheego oo wanaagsan inuu gaaro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maraatib alculya meelaha sare ku gaadhsiiyo. sadaqa ayaa ka mid a. waxaa ka mid a qofka wax bixinaya inuu ducaa almalaa'ikati lahu, malaa'igtu inay kuu ducayso inaad hesho. oo malaa'igtu subaxii waagu markuu beriye waxaa la yidhi malag baa soo istaagayo oo laba malag mid wuxuu dhahaya allaahuma acti munfiqan khalafan, ilaahayo qofkii wax bixiya bedel khayr qaba sii. ka kalena wuxuu leeyahy allaahuma acti mumsikan talafan, ilaahayo qofkii wax bixin waayana ka qaad xoolaha dhaafi. marka ducada malaa'igta ayaaba lagu kasbadaaba fawaa'idda ay leedahay ka mid. waxaa ka mid a ziyaadatu lbarakati fi maali lmutasadiq, qofka wax baxsanaya in xoolaha loo barakeeyo. waa xadiis saxiixa inay barakoobayaan oo xoolaha ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu barakayn. suuragalla ma ah inay sadaqa xoola nusqaamiso. waa xadiidkii rasuulka maa naqasat sadaqatu min maal, sadaqa sideedaba xoola ma nusqaamiso. haddaad wax walbood haysato bixiso kaa nusqaamin mayso biidni illaahi, wixii kuu haray oo yaraabuu ilaahay kuu barakeynayaa. rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa jirta qiso maalin maalmaha ka mid a caaisha uu weydiiyey neef adhigahoo la qalay. uu yihi caaisho maxaa noo yaala? markaasaa waxay tihi neefkii oo dhan waan bixiyey yaa rasuulallah, waa wada sadaqeeyey, hal garab baa inoo haray. hal garab baa inooga haray. rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam neefkii oo dhan wuu inoo yaalaa, halkaa garab ma ogi. bal u fiirso, waa cagsi opposite sidii iyada u tiri sida kasoo horjeedu u sheegay. oo maxaa jira neefkii oo dhan wuu inoo yaalaayo
ee aakhare ayuu meel inoo yaalla oo waan baxsanay. halkan soomaa garab dee waa la cunayaa, wixii la cunana isagu wuxuu noqon adaa cunay, laakiin wixii la sadaqeeyey baa marka kuu hadhay. marka u fiirso, waa sidaas sadaqadu ma nusqaaminayso. sadaqadu ku jirta baqaau sadaqati min maalil qofka wax bixiyey, ilaahay subxaana watacaala wuxuu noqon xisaabtiisa iyo jazihiisa abaalmarkiisa wax u weyneeya. mudaacafa ajrika mutasadiqa qofka wax baxsanayana waxaa loo labalaabaya adcaafa mudaacafa, oo intaasoo jeer loo leelaabaya 700 oo jeer iyo ka badan baa loo sii laabayaa biidni illaahi tabaaraka watacaala. waxay noqotaa sadaqadu sababun lidukhuuli ljanna, jannada ilaahay in lagu galo sadaqaaba noqoto. oo saaxibu sadaqa qofka sadaqada bixiyeyna maalinta qiyaamada waxaa looga yeedhaa min baabi sadaqa, albaabada ee jannadu ay leedahay oo sideedda albaab dad looga wada yeedhayana way jiraan. allahuma ijcalnaa minhum, ilaahay inaga mid ha dhigo. dad baabu sadaqa looga yeedhayana way jiraan. ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo ahlu sadaqa. wallahu aclam.